madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda ayuu arkaa in bohol loo qoday siyaasadiisii mugdi la geliyey talooyin xun la siiyey dadkii uu hogaamin lahaana lagu diray waxaa la siiyey talo ah kasii jeeso madaxda maamul goboleedyada waxba kaama qaadi karaan dowladdaada ma horyaamin karaan waxaa kugu filan in aad aamusto siyaasadaadana ay noqoto mid aan dhawaaqba lahayn taladaasi talo wanaagsan maahay balse hadda ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu arkay in taladii la siiyey ay tahay qaab marnaba dowladdiisu aydan hore u socon karin garow ayuu tegay wejigabax xoogan ayuu kala kulmay kulankii koowaad is-araggii koowaad madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani garoonka diyaaradaha wixii ka dhacayna anna waan ogahay anna waad ogtahay mid la dabooli karana ma aha markii la hordhigay su-aalo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay noqotay mid uu jawaabo u waayay su-aalaha la hordhigay ee ku adkaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wixii garowa ka qabsaday ayaan tooshka ku iftiimi doonaa odayaal kasoo jeeda jubbaland hadlay waxay ay odayaashaasi si qaawan u weerareen tareenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay nagu tilmaameen tareenka aan indhaha lahayn ma kula tahay oda dhaqameed uun jubbaland ama oda dhaqameed axmed madoobe amar ka haysan inuu shir jiraahid ku qaban karo magaalada kismaayo ma kula tahay hadal uunan raalli ka ahayn axmed madoobe in laga dhigi karo magaalada kismaayo waxaa jira dagaal hoose oo qaawan oo u dhexeeya jubbaland puntland iyo dowladda dhexe oo bannaanka yaalla balse laga ilaalinayo warbaahinta aniguse tooshka ayaan ku iftimi doonaa hadduu alla idmo 4 bilood maalmo yar ayaa ka dhiman oo waqtiga madaxweynaha jamhuuriyaddu uu joogo madaxtooyada villa soomaaliya ma jirto guul amni ma jirto guul siyaasadeed albaabadii beesha caalamka rajadu waxay maraysaa meeshii ugu hooseysay yaa bohoshan ku riday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ma ogtihiin maalmahan madaxtooyadu inay khatar ugu jirto qalqal abni oo weliba la qorsheynayo weeraro lagu qaado gudaha madaxtooyada villa soomaaliya maxaad kala socotaan in gudihii madaxtooyada villa soomaaliya ciidankii amniga gudaha qaabilsanaa ay helayaan xogo ku salaysan inayba jiraanba laamo la shaqaynaya argagixisada oo gudaha madaxtooyadaba ku sugan xafiiskii madaxweynaha shaki badanaa ka jira ra-iisul wasaarihii looma ogolo inuu staff la galo madaxtooyada villa soomaaliya guddoomiyihii golaha shacabkana waad ogtihiin oo xitaa afka kala furtay oo weliba uu yiri dhibaatada shabaabka waxaa loo wada laamaha amniga qaarkood arrintu waa qasan tahay marxaladdu waa xasaasi aniguna tooshka la dul istaagi doonaa kusoo biir pageka facebook cabdilaahi balwan si ayna barnaamijyada kuu siigin flow garee sidoo kale kusoo biir janalka youtube-ka iftahan production ood mar walba kala socon karto marxaladaha ugu dambeeya magacaygu waa cabdilaahi balwan waxaan ahay wariye waxaan gudbiyaa dhacdooyin shaqo ku malihi mucaarad iyo muxaafad intaba waxaan ahay soo gudbiye fariin wade shaqadiiduna ma aha fariintaasi meesha ay ka timid shaqa aan ku leeyahayna ma jiro siyaasaddu hadda meesha ay taagan tahay dadka soomaaliyeed la wadaagaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hadda ogaaday in bohol loo qoday siyaasadiisana ay mugdi gashay 100 maalmood kadib madaxweynuhu amniga ayay dowladdiisu fashil ka taagan tahay siyaasadii gudaha fashil xoogan ayaa ka jira xiriirkii u dhexeeyey beesha caalamka iyo dowladda dhexena meel wanaagsan ma taago abaaro afka keliya laga sheego oo aan ficil lahayn iyo masaakiin la isku sawiro ayay dowladdiisu dhex taagan tahay haddaad horey u aragtay madaxweynihii soomaaliya oo booqday deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo dad masaakiin oo baahan isku sawiray waxay dadka soomaaliyeed maanta arkayaan ra-iisul wasaarihii dalka oo dad masaakiin oo baahan isku soo sawiraya maalintuu madaxweynuhu yiri gurmad ha la fidiyo abaaraha loo gurmado iyo maanta farqi weyn macnaha waqti dheer ayaa u dhexeeya mana jirto dhaqdhaqaaq dowladdu sawir miyay ka rabtaa keliya dadka masaakiinta ah maanta waxaa u caddaaday madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in la curyaamiyey dowladdiisu ay dhan walba fashil ka tahay wuxuu tegay puntland garowe waxaa kusoo dhaweeyey saciid cabdilaahi dani garoonka intii lagu jirayna waxaa jirtay fallaaro lagu riday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo cabsi ah saciid dani wuxuu kusoo dhaweeyey garoonka wuxuu kaga hortagay diyaaradda balse markii la gaaray salaanta dadkii taagnaa garoonka garowe waa uu ka gaabsaday dib ayuu uga durqay xitaa wax kale iska daayay markuu salaanta qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saciid cabdilaahi dani gaarigiisuu saarnaa
ورمحاسا لوغو قلي ورتنقن دولدين مياه waxay leeyihiin dadka Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda dad baa waxay ku yiraahdeen adigu madaxweynenimadaada ku ekow dadkan kalena dhagax ka furayso oo haddii dowladnimadu ay noqotay koox yar oo kooban amar ay bixiyaan madaxweynuhu inuu talo kale ku dhacay anigu waan filay kulan baa dhacay xalay Siciidan iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa wada fariisteen maxaa Puntland looga jawaabayaa maamulkii la dhisay ama dowladdii la yagleeray سعيد عبد الله يدل وحو كلها لحدا يسدل عد وحو لها نكي ugu codadka badnaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Garabstain oo waliba ugu deeqay kana dhigay madaxweyne qof kaalinta saddexaad galay ma ogtihiin in wareegga koowaad uu kaalinta saddexaad Xasan Sheekh Maxamuud uu galay konton iyo laba cod kaliya u haystay sidee bay ku dhacday isweydiin nin wareegga koowaad ee tartanka madaxweynenimo kaalinta saddexaad ku jiray inuu wareegga saddexaad ku guulaysto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya وهدو أبال جيرو أبال وين أيو سعيد عبد الله الدري وقرين مدحوين حسن شيخ محمود لكن أبال كي محل غني وعلى قولت لي كوح أريبو مركز توان كدقاء لكن وان كون عليا وجددوا معها هدي وحلقة قطي هدي وحلقة قبوغي انتو أنا وشغلكم لي لكن رقبة وحي كوي رهنين استغفقوا صاحبدا كديرو ميدوغي مشرحينتي صاحبدا لها القبل يلبدا صاروا نجاح كفريسو شريف شيخ احمد تليفون كقبل حسن شيخ محمود احداث تحي حسن علي غير هالهادي سيدو كله هاوجو جنين داهر محمود قال لي مرنا بها كدغ يصور عبد القادر عصبري صاحبدا سعيد عبد الله الدري هالهادي احمد مدوبي سيدو دورها او يلي سعيد عبد الله الدري دنيه ايو وليبا بلانتي ادغشير وقبح دد با كولا جري حالي سؤال ايان دوري كلنكي كوادي فولكا waxaa lagu yiri madaxweyne sultaan naga tashatay goorma Puntland u baahat wuxuu yiri aniga wax walba in la xalliyo diyaar waxaa lagu yiri madaxweyne wax walba oo haleys madaxweyne xukuumad aadan haban yaraatee maamul goboleedyada kala tashan ayaad madaxweyne keentay madaxweyne wax walba sida ay u toosnaayeen uma aadan sameyn wad qaloocisay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku noqotay fallaaro waaweyn gantaaladii lagu riday oo waliba loo cadeeyay in dawladdiisu aynan hatta maamul goboleedyada u baahnayn waxa lagu soo lagu siiyay talo soo lagu yiri Puntland ha u joojin aaway balanteeni war balanteenu galnay aaway markii aad wareegga saddexaad u gudubtay inta aad naga balan qaaday war aaway taladii aan ku lahayn xukuumadda war ma nagala tashatay wasiirka aad nasiisay arrimaha dibadda war ma ogtahay in qofkii aniga liidigu ahaa kaliya aad xuratay وسيرك علمها الدبدة يا سعيد عبد الله الدري لا يسمطسو حسن الشيخ حالي بريوتا ورغالنا قريب ورسيدا المودية منه وارتلحوا ليسيين وسيروح وحليات وحلويري قضبضا إيا سؤالها هرتالي يالا إي بطلان قرآن كيدا نقيسو كدبنا قصو رقم دولة دانا وقرب كيدا لكن هدين دولة دانا معناتو هدانا هاي بطلان بنا كان كتاقنا لما موضي يوتيوبي دورا سؤالها هوريها لنا جوابا لوغا باهيه waxaan ka baqayaa inay dhacdo in Siciidani Xasan Sheekh jooga Garowe ama maalintu ka soo tago in Garowe looga dhawaaqo shir ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu banaanka ka yihiin oo shirka madaxweynaha maamul goboleed ay yeelan doonaan waa culays tabla Kismaayo odayaal dhaqameedyo Jubbaland ka soo hadlay waliba odayaal dhaqameedyada Jubbaland ka soo hadlay Kismaayo waxaan rabaa dadku inay mid sii ogaadaan odayaal dhaqameedyo aan ogolaasho ka haysan Axmed Madoobe Kismaayo shir jirayd kuma qaban karaan cid aan ka dhigaysanay taas haba yaraatee ma jirto waa dab qof uunan Axmed Madoobe ogolaasho ka haysan haba yaraatee shir kuma qaban karo magaalada Kismaayo anna waa ogahay anna waa ogtahay odayaashaas waxay yiraahdeen tareenkan indhaha lahayd intuu jiro ama la saarayeen waxaa madaxweyne noo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe halkaas wuxuu yahay waa dagaal labaad ودقال لبعض ما بركين لبعض وستوصل دولة مدحوين حسن شيخ محمود وقرر معايا ورمح الله ويستا ودولة بقول ما موت كرر نافتي أو كسر أفر بلوت أو أنا أمنيجي إيه السياسة دي منا وأنصلي ودولة كلي يكون مش فرصة قفك مسكين كأحيان باهم أبارتو درجتين إن صار الله صدق حتى هذا ركتين مدحويني كفر مدحويني صومالي أو كفر قبل صورة كل كل يدد مساكين برمانتر وضع كيسان رئيس الوزراء أو قبل كيران أبار بحسب ضد أي هيستو صورة لكليه ما ركتين قرمت أباريدو لفوليي ورياء يتوسكان قوبل لجيي ديرلي لو مترقلي أفرطن كونتينران مغرمين هل كونتينر ميل لجيي مجرى
markii laga reebo dhowr kartoon oo sawirro lagu soo galo halkee bay ka baxeen deeqdii loogu talagalay lacagtii loogu talagalay halkee baa la geeyey waa fashil inteeda le madaxtooyada villa soomaaliya qalqal amni ayay ku jirtaa xataa gurihii madaxtooyada villa soomaaliya la helay in ay jiraan dad madaxtooyada ku sugan oo saraakiisha amniga dalka ka mida inay xiriir wanaagsan la leeyihiin argagixisada al-shabaab cabsi madaxtooyadii kala carab taliyihii saadiq joon xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya saacado ka horna beejkiisa wuxuu ku qoray haddaanan la iska saarin ama baahalka kuugu jira guriga aadan bannaanka geyn dagaal waajib kugu maaha qoraalkaas muxuu yahay madaxtooye shabaab joogto lagala dagaalayo gobolada adduunyada kama jirto dadka soomaaliyeed inay ogaadaanna waa muhiim shabaabku madaxtooyada jooga war shabaabku laamaha amnigu ku jira war albaab walba shabaabaa ku jira waxaa la leeyahay madaxweyne goboladii waddankaa kula dagaalayna ra-iisul wasaare gobolka hiiraan oo aad ciidan sawir la gasho waxaa kaaga sukaya xafiiskaaga amnigiisa waa fashil amni oo dhan walba ah waa fashil amni oo dhan walba ah waa siyaasadii arrimaha gudaha oo fashila madaxweynihii oo jawaab hayn xaaladda oo aad u cakiran intaasoo dhanna waxaa keenay koox tiro yar oo madaxweynaha madaxtooyada u fadhiya waa kooxda ku diray dadkii albaab walba ka soo helay maantana ku kalifaya inuu xasan sheekh maxamuud baryootamo wixii ku dhacay garowe waad arkaysay in siciidani intuu u diyaariyey soo dhaweyn aan laabta jirin kadibna uu dad dhagxaan wato ugu diyaariyey albaabka hore ee laga galo madaxtooyada garowe wax walbaba bannaanka yaallaan annaguna tooshkan ku iftiimi doonaa dhinac kasta oo ay arrintu ka qasan tahayna cabdulaahi balwaan wuxuu diyaar u yahay inuu bulshada soomaaliyeed usoo bandhigo waxba aniga ha ihiifin waxba aniga ha ii arkin qalab maxaa yeele waxaan ahay wariye shaqadiisu waa soo gudbinta dhacdooyinka inaan anigu xaqiiqda tooshka la dul istaago meeshay arrintu ka qasan tahayna dadka aan tuso waa shaqa aan anigu meesha u fadhiyo marka waxba aniga ha igu mashquulin waxba aniga ha ii arkin qalad waxaan ahay soo gudbiyuhuna wax uu dembi leeyahay haba yaraatee malaha u ogolo wariyuhu inuu xuquuqdiisa soo gudbiyo oo ku salaysan inuu soo bandhigo barnaamij kasta oo khatar ku ah laamaha amniga hadday ahaan lahayd qaranka soomaaliyeed khatar ku yihiin argagixisadu qaranka soomaaliyeed khatar ku yihiin shacabka soomaaliyeedna halis bay ku tahay amni xumada jirta wixii kusoo kordhay isha ku haya Facebook page Abdullahi Balwan oo mar walba kala soo karto barnaamijyada soo gudbiyo iyo channelka YouTube-ka Aftahan Production nabadgelyo